السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا صاحبتين يوتيوب channel ku xiran Barka 252. subax wanaagsan meel kasta ay joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamij yar aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona oo xal dhashay tartanka UEFA Champions League. guul muhiim ayay ka gaartay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Barcelona waxaa ka maqnaayeen Gerard Piqué iyo Messi, Marc Ter Stegen oo ka maqan ayay guul ka gaartay kooxda Inter Milan. 2 gool iyo gool ayay ku garaacday kooxda Inter Milan. 2 gool ee Barcelona waxaa dhaliyeen Carlos Perez iyo Ansu Fati. ciyaartii xalay waxaa laga bartay Ansu Fati ayaa noqday daayirkii ugu horeeyay ee tartanka UEFA Champions League gool ka dhaliya. Carlos Perez wuxuu noqday goolkiisii ugu horeeyay UEFA Champions League ayuu u dhaliyay Barcelona kulankii xalay dhexmaray kooxaha Barcelona vs Inter Milan lagu ciyaaray garoonka Giuseppe Meazza iska leedahay kooxda kubadda cagta Inter Milan. Inter Milanna koobkii Champions League way ka hartay. Barcelona iyo Borussia Dortmund ayaa ka soo baxay groupkii ay ku wada jireen. Inter Milan iyo Slavia Prague way ka hareen tartanka. kooxda kubadda cagta Barcelona isku aadka marka la sameeyo kooxay ku aadi karto waxaa laga yaabaa Napoli, Lyon, Chelsea, Spain kuma aadi doonto. yaa jeclaan lahayd inay ku aado kooxda kubadda cagta Barcelona wareegga 16 tartanka UEFA Champions League. janaalka Barka 252 fadlan rukuma janaalka haddaa ku cusub tahay. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.